jalaal soo dhawaada barnaamijkan waxaanu ku eegaynaa isla markaana aanu ku radinaynaa been baraha bulshada qabsatay oo wax ka jira beerataan arrintaas waxay ku saabsan tahay nin reer Djibouti ah oo wahaabi argagixisa ah ayaa magaranaysa dawladda Djibouti qabatay isla markaana xabsiga la dhigay arrintii xabsiga iyo waxaas oo dhan baa laga beesheegay jalaal sidaad arkaysan fiidiyowga ayuu soo bandhigay isaga oo masquul magaranaysa magaalada banaankeeda Djibouti ku taal dad soo duubay oo dhul laga guuray ah waxa ku tilmaamay inuu xabsiga yahay xabsiga inuu ku dhex jiro isla markaana ku dulmay wax ka jira haba yaraatay lama arko jalaal ninka kan aad arkaysan ee wahaabiga ah waxa uu gaalaysiiyay ummadda muslimiinta ah ee Djibouti wuxuu leeyahay war dalkani uu burburay diin ma haysto caafimaad ma haysto tacliin ma haysto jalaal sidaad arkaysan ninka kan waa wahaabi uu gaalaysiiyay dadkii reer Djibouti sidaa ayaana loogu dooday bal waayahay bal dhibka uu tirsanahay waa maxay reason ku leeyahay dhibta badan oo ma aragtay jalaal uu arkaysan ninka kan wax uu qaba lama arko maxaa waay wax hadalka xataa isku aadaadin haya tartiib buu hadlahayaa magaranaysa wax ku soo dhacay way qof markuu dhibaato qabo wax uu sheegayo markiiba uu soo tuuraa xataa lama gambado lamana daadaajo waxa subada wahaabigan waxa uu gargaar weydiisanaya wahaabiyadii kale isaga ka dambeeyay soo وشيخ اللي رده الشيخ حسين علي شيخ عبد الرحمن بشير كان جو هابي ليتا iyo شيخ كلوش عبد الرحمن برقد جهد ليراي أنا يسمعون لي الله الله يا الشيخ حسين علي عبد الرحمن برقد جهد أنا عبد الله نوح ضدك عبد الرحمن بشير إلهي بعندك وحبري إلهي بعندك وحبري ضدك كهذا ودين ما أنت أرنك جبوتي هيستا أرنك هيستا ما ركتني jalaal wahaabiga kaliitaha ah ee laga qabtay ummadda reer Djibouti ayaa magaranaysa haweeneydii uu qabay ayaa iyaduna ay tamaysa iyadoo banaanka joogta dawladda iyo madaxweynaha sharafta lahaa Ismaaciil Margeel ayaa caynaysa aan dhageysan maxay leedahay dawladdan baan aaba oranayaan ma jirto aaba way dhamaatay waa final aaba waxa la ilaahdaa way dhamaatay aabanima ma jirto Ismaaciil haduu i dhageysanayo aabanima way dhamaataan kulay warkayga runta maanta dhageysan kuleeyahay hadaa jalaal ninka kan wahaabiga ah waxa lagu magacaabaa Fuad Yusuf Ali waa wahaabi sida ayuu marka hore ahaa askari caadi ah askarta qawaaniinteedii ayuu xataa jabiyay garooyin buu la baxay dhowr jeer ba asaga laftigiisa sheeganaya waa la ciqaabo bulli maxaa waay qaanuunkii askarnimada ayuu jabiyay wahaabi liita weeye wahaabiyadu waxay doonayaan isku fidiyaan dalka Djibouti dad fara badan oo waxaan arkay reer koonfuri oo arrintan magaranaysaay ku kadsoomahay oo aan la socon wax ka jiray magaalada Djibouti waxaan rajaynayaa dhibaatada ay wahaabiyadu nagu hayaan argagixisada nagu hayso oo shabaab nagu hayo in magaranaysa aad fahantaan isla markaana walaalaha reer Djibouti aan loo geynin musiibada oo hadii ay iska qabtaan mid liita oo ay xabsi dhigaana inaad ku taageertaan mooyee inaad qayladaan iyo dacayad aan laga fidan yarjinay dawladda Djibouti waxaan ka codsanahay in la soo saaro sharciyo la xiriira argagixisanimada isla markaana xabsiga lagu adkeeyo argagixisada dalkana laga badbaadiyo madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Margeel wax fara badan buu qabtay magaranaysa dekadihii arrimaha wadooyinka magaranaysa waxaan leenahay jir oo joog dalka xukunkiisana si hay jaale madaxweyne tooshow ayaa kala socota waxaan jeclaan lahaa barnaamijkan inaad share garayso si beenta faraha badan la faafinaya wararkan uu uga daba tago jaalayaal inta aanu dib dambe kulmi doono waxaan leeyahay sida ay nabadgelyo jaalayaal